waxaa cirkiis ku sii shareeraya khilaafka xooggan ee ka dhex qarxay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ee NISA iyo shirkadda isgaarsiinta Hormuud. maalintii Axadda gelinkii dambe ayay ahayd markii hay'adda NISA ay bartilmaameedsatay sidoo kaleetana 3 ka mid ah shaqaalaha Hormuud ay ka xirtay xarunta shirkadda Hormuud ay ku leedahay wadada Maka al-Mukarrama gaar ahaan Trebiano. shirkadda Hormuud oo maanta Isniina gelinkii hore war-saxaafadeed soo saartay ayaa sheegtay in sifa sharciga baalmarsan loo beegsaday xarumaheeda sidoo kaleetana loo xiray shaqaalaheeda, iyadoo war-saxaafadeedku shirkadda Hormuud soo saartayna ay ku xustay in sababta loo beegsaday xarumaheeda iyo shaqaalaheedaba ay tahay in hay'adda NISA ay codsatay in la siiyo xogta EVC-ga ee shirkadda. shirkadda Hormuud ayaa war-saxaafadeedkeeda ku soo gabagabaysay inay tahay waajibaad saaran ilaalinta xogaha EVC-ga iyo guud ahaan xogaha kale ee muwaadiniinta Soomaaliyeed. daqiiqado kadib hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka NISA ayaa warbixin iyana soo saartay waxa ay ku caddaysay in sababta ugu weyn ee shirkadda Hormuud loo beegsaday ay ahayd in ay gabaad siisay isla markaana ay dusisay oo ay qarisay xubno ka tirsan Al-Shabaab sidoo kaleetana ay diiday inay xogteeda la wadaagtay hay'adda sirdoonka NISA. kama soo wareegin saacad kadib markii albaabada loo laabay xarunta ugu weyn shirkadda isgaarsiinta Hormuud ee suuqa Bakaaraha, sidoo kaleetana la xiray xarunta dhexe ee bangiga Salaam Somali Bank. inkastoo warar lagu kalsoonaan karo toddobaadyadii la soo dhaafay ay xusayeen in hoggaanka sare ee hay'adda NISA uu u beegsanayo shirkadda Hormuud siyaabo dadban taasoo la xiriirta dagaal ganacsi ay jireen, haddana waxaa is soo taraya khilaafka hay'adda NISA iyo shirkadda Hormuud ka dhex xoloolsan.